si loogu adeego dadweynaha degan waaxda shanaad ee degmada Dharkeenley waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ay weheliyaan senator Zamzam oo kamid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenadiisa waxay dhagax dhigeen xarunta waaxda Kaawagoda iyo xarun loogu adeego hooyada iyo dhallaanka gudoomiyaha degmada Dharkeenley Gohaad Sheekh Xasan waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo senatorada u sheegay in marka laga reebo waaxdan ay waxyaha kale ay leeyihiin xarumaha loogu talagalay in adeegyo ay ku qancaan dadka laga siiyo runtii mudan gudoomiye waxa maanta aad ugu faraxsanahay in aad noo dhagax dhigto xarunta waaxda shanaad oo dhawaan aad magacawday waxay kamid tahay waxyaha ugu waaweyn degmada Dharkeenley hore afar waax ay u lahayd laakiin waaxdan ugu yar ayaa hadda u muuqata waaxda ugu weyn inay tahay oo wax soo korayso oo dhismayso oo goofna leh deegaana leh waxaan ku faraxsanahay in xaruntan ay yeelato sidoo kale maadaama meeshan bulsho badan ay degan tahay waxaa la diyaariyay oo anigu mahad celinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir in xarun MCH idana la dhagax dhigayo agaasimiga caafimaadka noo joogo aan rajeynayno inay idana noqoto mid kamid ah baahiyihii bulshadan haystay inay daboosho haduu la yiraahdo senator Zamzam oo kamid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ku bogaadisay horumarinta caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir oo asagana dardargelin xoogan ku wada waaxyihii iyo dubudhiskii gobolka Banaadir inuu ka shaqeynayo deegaan markuu xafiisyo yeesho oo iskuulo yeesho oo caafimaad yeesho kadib uu maaragtay horumarkiisa ay ku xiran tahay marka in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ka shaqeeyo horumarka gobolka Banaadir oo beeska u ah shacabkan gobolkan 3 milyan iyo dhowrka ku nool haday waxbarasho ahaan lahayd hadda waxaana loo sheegay MCH sidoo kale in la dhagax dhigayo waaxdan ay leedahay maaragtay aad iyo aad wax loogu farxo waayo mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa uu tilmaamay in maamulkiisu uu ku dadaalayo in dhammaan xarumaha loogu adeegayo bulshada laga hirgeliyo dhammaan waaxyaha degmooyinka gobolka Banaadir waxa sharaf noo ah maantii inaan dhagax dhigno waaxda shanaad ee degmada Dharkeenley kadibna aan si aadi doono biidnillah isla MCH-ka waaxda shanaad ee Dharkeenley oo la yiraahdo waaxda Kaawagoday runtii Kaawagoday waa deegaan cusub magac ahaan ma cusba oo waa macruuf laakiin deegaameynteeda ayaa cusub bulshadu halkan ayay ku soo badatay baahi ayaa timid marka bulshadan haday ahaan lahayd maamulkii haday ahaan lahayd MCH haday ahaan lahayd goobo waxbarasho baahida bulshada si looga jawaabo ayaa waaxdan loo soo magacaabay maamul ka tirsan maamulka Dharkeenley maamulka kadib wuxuu suura geliyay maamulkii bulshada oo iskaashaday inay keenaan goobo danguud ah oo ay ka mid tahay xaruntii maamulka waaxda waxaan rajaynaynaa marka maamulka waaxda markay keeneen waxay kaloo keeneen xaruntii MCH-ka oo runtii shacab aad danyar u ah oo haween iyo caruur u badan ay ku nool yihiin waxay aad ugu baahnaan lahaayeen waa inay helaan daryeel caafimaad si taas loo xaqiijiyo ayaa MCH-kiina ay bulshada waaxdu ay keeneen iyagoo mataqaanaa ku sharfay maamulka gobolka Banaadir kan Dharkeenley iyo midka waaxdan loo magacaabay runtii arintan waxa waa tallaabo hore loogu marinayo bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan reer Dharkeenley waxaa kaloo looga fadhiyaa waaxdan inay keenaan goobaha haray ee danta guud oo ka mid tahay goobihii waxbarashada ay ka mid tahay saldhiggii booliiska oo aan filayo haddaba inuu diyaarsan yahay laakiin mar kale aan dhagax dhigi doono haddana sidaa darteed waaxdan waa waax u furan miyiga ama baadiyaha u furan inta badan marka waaxaha u furan baadiyaha ayaa waxay noqdeen beelo waaxday ka weynaanayaan kadibna waxay isu gudbaan degmooyin kale marka dhismayaashan uu maanta uu dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa noqonaya muddada uu joogo 72 xarun oo dhagax dhigay Ibrahim Xaaji Yusuf warbaahinta gobolka Banaadir magaalada Muqdisho.